filimka Baaruud mid kamid ah aflaamta ay Soomaalida xilliga shaleemooyinka aad ku xiisan jireen filim heesaha ku jira dhamaan aad loo xiiseeyay dhageysigooda hadda waxayna wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimkan Baaruud kaas oo ay hogaamiyaashooda yihiin Akshay Kumar iyo Rafiina Tandon balse intaan u guda galin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa channelka soo birto muuqaalka haddii aad ka hesho like noo saar sii share gareeyo la wadaag asxaabtaada soona dhawaada saaxiibayaal filimkan Baaruud waa mid kamid ah aflaamta actionka xilliga hore aad loo xiisan jiray waxa hogaamiyaalkooda Akshay Kumar Rafiina Tandon Amrish Puri Reeqa Gulzar Munish Bail iyo sidoo kale Jilaayal uu kamid yahay Gulshan Garover ama indhaxraar waxa uu taqaanaa filimkan waxa agaasimo ka ah ama agaasimiga sidoo kale soo saaraba ka ah ninka lagu magacaabo Birmut Chakraborty filimkan waxa uu soo baxay 7 Agoosto sanadii 1998 filimkan tiyaatarada la saaray waxa lagu sheegay in ka badan 175 tiyaatar lacagaha lagu qarash gareeyay filimkan waxa lagu sheegay 5.50 karoor waxa uu soo xareeyay ama uu keenay saaxiibayaal 4.85 karoor taasoo ka dhigan in natiijada uu noqdo filim flop ah ama filim guuldareysta wadarta guud filimkan suuqyada caalamka uu ka keenay xilligaas 86 lig isku dardal iyo dibadna waxa uu keenay 8.60 karoor natiijada flop ayuu noqday saaxiibayaal marka la eegana filimkan waa filimkii 27aad ee lacag ugu badnaa soo xareeyay sanadii 1998 markaan eegna filimkan iyo xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay hal iyo laba ayaan ka eegi doonaa filimkan waxa la marka hore waxa la rabay in la daawado ama tiyaatarada la saaro sanadii 1995 laakiin reason ama sabab jira darteed 3 sano ayuu dib u dhacay waxaana la saaray tiyaatarada sanadii 1998 xaqiiqooyinka waxa qaybka filimkan waxa la waa filimkii labaad title-ka ama magaca Baaruud wata kaas oo agaasimay ama director uu ka noqdo Birmut Chakraborty kor filimkani waxa jira filim kale oo asiga uu director ka ah kaas oo Baaruud lagu magacaabo waxaan la daawaday sanadii 1976 xaqiiqada ugu dambeysay filimkan waa filimkii ugu dambeeyay ee director Birmut Chakraborty oo director ka noqdo kadib filimkan director muusan ka noqon hadaba intaas ayaan ku soo gabagabeeyay muuqaalkayga fadlan hadaad ka hesho muuqaalka like noo saar share gareeyo la wadaag asxaabtaada waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena